waxaan u wanaagsan asxaabta dhaqaale marka la barnaamijyadeena caawa barnaamijka Excel kan kana sanad hadii la yiraahdo waxaan idin tusi doonaa barnaamij aad u xiiso badan marka barnaamijkan waxa weeye barnaamijkan eSIM ka la yiraahdo ama embedded SIM ka la yiraahdo telefoonada ay ku shaqeynayaan bila SIM kaarka caadiga ah nambaradaada oo lagu programinayo telefoonkaaga adigoo aan isticmaalayn waxa bay yaraatay SIM kaar la yiraahdo qaabka telefoonkaaga uu ogaan lahayd inuu ku support gareynayo in kale ayaan halkan idinku tusayaa marka barnaamijkan isagoo dhameystiran halkan kaga bogeynaysan markaas ila socda marka koobaad waxaan fureynaa telefoonka soo fureynaa settingkiisaan galaynaa settingkiisaan click leenahay marka settingkiisaas u galno kadib halkaas ay ku qorantay connections ayaan sii galaynaa connections markaan click niraahno kadib waxaan raadinaynaa SIM manager halkan ay ku qorantaan imanaynaa SIM manager markaan click niraahno kadib waxaan hubinaynaa in telefoonkaaga halka kugu qoran yahay eSIMs kadib hoosteeda waxa ku qoran add eSIMs ama add mobile plans ya meelaha qaar ku qoran telefoonada iPhone-kana waa isla process-kan marka cellular-ka aad gashaan halkan add eSIMs baad ku arkaysaan iyagana waa la mid weeyaan marka barnaamijkan wuxuu kuu ogolaanayaa ilaa 3 SIM kaar inaad ku shuban karayso ama ku program gareysan karayso 3 SIM kaar maahan 3 nambar oo kala duwan inaad telefoonkaaga ku programinaysid adigoona isticmaalin haba yaraato wax SIM kaar aanad gelinayn waa chip telefoonada qaar kuwa dambe waliba ku samaysan markaas telefoonada qaybta imika tusaale Samsung oo kale waxa uu ka bilaabmaa S20 iyo wixii ka sareeya ayaa leh Note 20 uu leeyahay Note 20 Ultra uu leeyahay iPhone-adana wixii iPhone X ka sareeya way leeyihiin sidoo kale Oppo telefoonada la yiraahdo way leeyihiin iyaga qaarkood maxaa la yiraahdaa Google Pixel oo kale way leeyihiin markaas aad waxaad hubinaysaa telefoonkaaga haddii uu leeyahay add eSIM xarunta kuugu dhow telefoonkaaga ama telecom company-gaaga kuugu dhow ayaa tagaysaan waad ku soo program gareysanaysaan nambaradaada ayaa lagugu programinaya adigoo haba yaraato wax SIM kaara aan wadinin ama bas aan gelinin telefoonkaaga iyo ku shaqeynaya wax walba sidii caadiga ahayd SIM kaarada ayaad u isticmaalaysaa waxaan u maleynayaa asxaabta dhaqaaliga inaad fahamteen haddii aad wax faham intaa ka balbalaadan ka faahfaahsan aad u baahan tihiin waad ila soo xiriireysaan waan idin sharixi doonaa haddii la yiraahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin goob walba goor walba aad joogteen asxaabta dhaqaaliga